السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كسر على شانل كيجا أو لا شنو معايمن waxaan ka hadlaynaa caruurta aan fruitka cagaarka cunin ayaan ka hadlaynaa saad warkaysiin caruurta detoxka xitaa saa loogu sameeyo maasha allah sidee baa fruitka loo barayaa cunooyinka loo barayaa maasha allah wayna isweydiinaa ilmaha bikiga inta badan waa caruuraha ugu dhib badan caruurtaasi dabeecadda ka halowda calool xanuunka ma baxaan qaarkood waxa weeyaan xanaaqooga badan qaarkood hurdo la'aan bay leeyihiin qaarkood constipation bay qabaan qaarkood caloosha shumanta maanta oo dhan socota waxay raday la siiyo allergy kama baxaan difaac ma haystaan caruurtaasi cunto waxay cunaan dry kaliya cuntada qalalan waxa loo yaqaano qalalan kaliya maaha rootiga way cunaan chickenka hadii ovenka la galiyo kale la qalajiyo kale baasta qalalan suugada meel dheera wax wada meel dheera sida suubka kale ma cabayaan waxyaabada faxfaxo kale ba waxaad u taqaanaan shurbado kale ma cabayaan boorashka kale way nacibiin waxyaabada caruurta nacab jirkooga caafimaadkooga waxa weeyaan ma wanaagsan akhwaati sidaad ku bari lahayd baa laga rabaa marka sideen cagaarka ku barnaa cagaarka 100 nooc baad uga dhigi kartaa ice cream baad uga dhigi kartaa waxa uga dhigi kartaa maasha allah sidaas oo kale waxa weeyaan camal oo kale waad arkaysiin xawayaanka waxa la yaqaanaa beeraha weeyaan af Soomaali ma garanaa xawayaanka jirista Soomaali waxa weeyaan kaas oo kale ilmihii uu jeclaanay sheyga marka xawayaan loogu sameeyo waa qudaar waxa weeyaan ilmo beeriyo isku shiiday oo beetraaf ku daray weeyaan markaas beetraafkan ku daray maasha allah distiyaad arkaysiin ayaan ku sameeyay maasha allah waa disti dhooba akhwaati sad arkaysiin ma wada duubi kareen igara laada dabka wax yar u gaabinaysaa saaraysaa marka cagaarka soo shiidid maasha allah waxa weeyaan cagaarka biyo maasha allah oo soo shaandhaysay waa ku shubaysaa marka ku shubtid dabka u naqostid waxa ku daraysaa sokorta brownka iyo maadadan maasha allah laga sheekeyn karaa akhwaati waxa la yiraahdaa waa powder saad arkaysiin maasha allah waa maado geedaha laga sameeyay waa gelatin waa maqasheen gelatinka lagu darsado waxyaabada iyadii oo geedaha weyn caleenta laga sameeyay geedaha vegetarian oo kale weeyaan waxay maado ku tahay maasha allah mineralka powerful kulada maasha allah aad ugu badan calciumka ku badan ironta ku badan zinca ku badan maasha allah vitamin E ga K ga lama soo koobi karo akhwaati waa maado aad u fiican macmacaanka laga sameyn karo ice creamka uga sameyn kartaan sidan oo kale uga sameyn kartaan si alle sida jeclaataan bahaladan yar baad iibsanaysaan sidan oo kale ugu shubaya markaas baashan ay wadata waa ugu shubaysaan waxba ma joogto Amazon oo kale ka iibsan kartaa iyadoo noocado badan oo fara badan oo xawayaano kala nooca ilmihiina uu ku cunaya maasha allah laga sheekeyn karo soo arkaysiin isagoo cagaaran waa kaasaan ka sameeyay waxaana ku daray markaan ka dhigay dabkii ka xili rabay kan aan ku sii laaqay kuleelka ku sii jiro si vitamin C ga uga bixin maasha allah difaac buu haystaa ilmihiina uu cunaya akhwaati waa shay muhiim u ah ilmaha maasha allah ilmuhuna ay jeclaysan doonaan saad arkaysiin waa wax marka la taabto sponge camal oo kale ah ay noqonaysaa waa sida gaamiya garanaya aan ka iibsano ma aragtay vitamiinada cunaan oo kale jecdiin oo kale u noqonaya ilma aad u jecdin akhwaati saad arkaysiin waa ka waxa uu noqonayo ma burburayo ma biyoobayo aad u fiican yahay akhwaati haddaba maxaa lagu detox karayaa ilmaha jirka maxaa lagu nadiifiyaa calooshiisa jirkiisa detox buu baahan caruurta maadaama intaas soo xanuunaan sheegay leeyihiin ee dib qabaan mar ay biki yihiin dhibaatooyin bay leeyihiin haddaba geedkan saad arkaysiin iyo geedkan way kala duwan kan waa chia seed saad arkaysiin waa ka koobka ku jira chia seedka waa ka koobka ku jira kan kalena xabasuud bay u egtahay waa arkaysiin mirahaas laakiin ma xabasuud waa miro kale waa arkaysiin cadaan noqdeen mirahan waxay powerful ku yihiin maasha allah digestive-ka caloosha dabshiidka aad ugu fiican yihiin metabolism-ka maasha allah kor buu qaadaya waxa kale uu qaadaya beer ku nadiifiya wuxuu sameeyaa vitamin A ayuu maadada heer sare ugu yahay maasha allah waxa kale uu fiican yahay timaha uu fiican yahay uu adkeeyaa timaha daadanayo kale waxa kale uu fiican nerviyada qofka maasha allah uu dajiya ilmaha kale antioxidant buu yahay ilmaha constipation ku kala dagaalama waxa weeyaan wuxuu furfuraa respirationka meelaha hawa mareenka neefta kale sida dadka asmada kale waxa kale u fiican tahay kale inuu kala dagaalamo fluga amba hargabka kale doo abaarayo kale ka jirka ilmaha u fiican yahay sharaabyada ugu daraysaan sharaabka cabayaan baa loogu daraa
wax la dareemay ma haba yaraatee maasha allah saa u arkaysiin waa arkaysiin waa waxa maasha allah aad u fiican tahay akhwaati lacagna ma joogto waa very important maasha allah wax saas u sii qaaliyana maaha marka loo eego jaasidka way kala duwan yihiin laakiin dadka waxa weeye sadna isku qaldin baan usoo dhigay marka inay isku mid ahayn marka ilmaha kan ma la siinayo kana la siinaya maasha allah maadadan ayaa ni sheegay detox aad ku sameynaysaan way aad ugu fiican maasha allah ilmaha in lagu dheeriyo inay macmacaanka iyo markaad waxyaabo qaarka siisiin inaad ilkaa u cadaydaan waa arkaysaan cadaygan dawadan aad u fiican tahay akhwaati waa maado fluoride free ka tahay maadadaas oo ogtiin ilmaha haday ku siibato khatar ba u tahay hadda koor waxaan siin jirnay ugu sameyn jirnay dacarta oo ogtiin laakiin maanta maasha allah maxaa kan u keenay waxay kaga fiican tahay saddex shay bay wadataa ilkii waa cadaynaysaa ilmihii bad breathing-kiina way ka celinaysaa urti afka long lasted waxa weeyaan muddo haynaysaa ilmihii marka loogu caday maantoo dhan hadduu xuno ilmahana sideeda waa ogtiin cadayga waxa kaliya loogu dhiban yahay maad aragtay maasha allah maado fiican weeyaan brushkeygii bay wadataa isaguna aad ugu fiican saad u arkaysiin marka akhwaati ilmaha ilkaha loo ilaaliyo maadaama la suuxiyo carruurta inta badan waa la suuxiyaa ilkaha marka doontiska la geeyo ma ogolo in mar walba loo nadiifiyo carruurta isku situation maaha marka baashan aad ugu fiican tahay inta shay bay wadataa marka u dayma la'aanina ilmaha hadday waaweyn yihiin dhib male saliidan oo kale waa la siin karaa 12 oo kale iyaga drops shantooda drops way qaadan karaan afka ilmaha laakiin beebiyadoo kale hadda inaad cuntada bartaan dadka qaar sanad iyo bara groupkayga ku jira dadka qaar ay waa 2 sano waxay niigu fiican tahay inaad qudaarta bartaan imika early tahay ilmaha intuu yar yahay bay fiican tahay inaad bartaan laakiin markuu weynaado hadhow way naga adkaanaysaa soo hadda intuu yar yahay siyaabadan badan baan idin rabaa marka nidiga kuwa cunada baraya noocyada badan baa ilmaha loogu soo bandhigaa siyaabo badan baa cagaarka aad ugu soo bandhigaysan insha Allah si ilmihi niga qaato isku day insha Allah akhwaati habina wax iga fahanteen wixii aad iga fahmoodeen insha Allah way soo weydiinaysaan kan agar baa la dhadaa hoosta nigu soo qoraya haddaad u baahan tihiin insha Allah isagana waa nii soo qoraya hoosta walaalaha kanna waxaa la dhahdaa basil seed geedka basilka caleenteeda waa la wada yaqaan waa caleef caraf badan oo caleenteeda xitaa detox bay samaysaa iyada iyo kamsarada haddaad iskugu dartaan iyo bartilka iyo liinta leendanaanta inta haddaad isku shiidataan jirkaaga waa detox garaysa akhwaati wax kale uma raadinaysid oo qaaliya caleentan wax walbay samaysaa basilkan waxa kale samaysaa dadka dhagaha dheecaama amba maanta oo dhan dhaguhu xanuunaan infection ku soo noqdo caleenteeda markaad siisaan lagama sheekayn karo wax badan baad dareemaysaan akhwaati caleenteeduna waa dawo midhaheeguna waa dawo marka waa nii soo qoraya insha Allah sawla socotaan wasalaam alaykum wa rahmatullahi walaalaha channelka waxaan idhi insha Allah subscribe ma itaabta share iyo like ma igu dhigto insha Allah si kor baan iga baahaya maadaama waxa ka soo gudbinayo waxaan isoo gudbinayaa walaalaha carruuraha haysta maadaama iyaga codsadeen ma video soo qadiyo insha Allah السلام عليكم.